xarunta wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa ayaa lagu kala saxday mashruuc biyo ballaadhineed oo laga hirgelinayo degmooyinka caasimadda Hargeysa qaar kamida kaas oo ku kacaya qadar lacageed oo dhan 5 milyan oo dollar waxaana mashruucan maalgelinaysa Coca-Cola African Foundation maarayaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sharaxaad ka bixiyay qiimaha uu mashruucani leeyahay maanta waxaan ka fadhinaa barbilowga mashruuc ballaadhan oo kamida mashaariicda biyo ballaadhinta caasimadda mashruucan oo lagu qodolay ku dhawaad 5 milyan oo dollar ay maalgelinayso Coca-Cola Africa Foundation fulinteedana ay yeelan doonaan si wada jira hay'adda Terri Solidali oo inagula joogo Mr. Maurizio iyo wakaaladda biyaha Hargeysa maanta waxaan ku saxeexi doonaa wax la yiraahdo commitment letter oo ah inaan kalsooni buuxda siino Coca-Cola Africa Foundation oo maalgelinaysa mashruucan dawladda Soomaaliland inay ka go'an tahay in mashruucan si buuxda u hirgalo garab istaagto Mustafa Ismaan Geelle oo ku hadlayay saraakiisha mashruuca suurta gelinaysa ayaa ballan qaaday in mashruucani sida ugu dhaqsaha badan uu u hirgeli doono isagoo u mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland ee mashruucan kala shaqeysay wasiirada wasaaradaha kheyraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo qorsheynta qaranka Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire ayaa si wada jira uga waramay ahmiyadda ay bulshada reer Soomaaliland ku dhaqan caasimadda Hargeysa uu u leeyahay hirgelinta mashruucan biyo ballaadhinta anagu xukuumad ahaan ama wasaarad ahaan kulay waxa naga go'aan ah in dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan biyo nadiif la gaarsiiyo oo ay biyo ku filan helaan sidaad mu aragtaa meel walba wada shaqayn fiican baanu abuurnay oo aanu ku gaarsiin karno meel kasta especially Hargeysa tan ku wargelinaya in dadweynaha pipes-kaas waxay mari doonaan guryaha qaar dhinacyadooda waa la qodi doonaa waxay ka talaami doonaan xataa meelaha laamiyada wadana nooc kale way ka talaabi doonaan waxaan doonayaa inay dadkeenu had iyo jeer dhul baa laga raacay inay soo dhaweeyaan dadweynaha xaafadda Maxamuud Haywe xaafadda Axmed Dhagax bay u badnaanayaan beebabkaasi markiiba waan u mahadnaqay inay sabaabuleen oo labadii barkadood ee ugu horeeyay midna laga sameeyay buurta madfacli midna masallaha inay si tabaruc ah dadweynaha xaafadda Axmed Dhagax ayagu lacagtii jeebada intay ka bixiyaan dhulkii beebku mari la ay barkada laga sameyn la ay ku tabaruceen dadka qofkii ay surveyga markay qaadaan ay u arkaan halka inay ku beegan tahay dadka waxaan leenahay soo dhaweeya waxa laga yaabaa hadda daar ku jirto ninka miskiinka sadaqada ku jira biyo loo gelin kareen inuu ka cabo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa si qoto dheer u tibaxay qorshayaasha xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo ay hirgelisay ee lagu horumarinayo biyo gelinta caasimadda Hargeysa daraasadaan ku sameeynay oo soo baxday in magaalada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa oo maanta ay ku nool yihiin ilaa milyan iyo dhowr boqol oo kun oo qof ilaa 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof ayaa lagu qiyaasay bulshada maanta ku nool dhibaatada ugu weyn ay ka jirto biyo la'aan mas'uuliyad weyn baa dawladda ka saaran dadka inta leeg ee meel ku urursan ee dhibaatada ugu weyn ay tahay biyo la'aan maaha caafimaad la'aan maaha wax kale dadku wadooyinka ka xun way noolaan karaan laakiin biyo la'aan laguma noolaan karo biyo markaa anagu waxaan u aragnay xukuumad ahaan inay tahay mudnaanta ugu horeysa ee u baahan waajib ka saaran naga saaran xukuumad ahaan inaan baad doon u gal marka mashruucan iminka hadda gacanta lagu hayo ee xukuumaddu diyaarisay waxa weeye mashruuc weyn oo biyaha caasimadda lagu ballaarinayo ceelasha uu ka soo farcamayo waa la kordhinaya ceel cusub la qodaya laba taangiye iyo kaydad hor la sameynaya saddex beeb weyn oo beebkii hore ka weyn baa lagu soo qaadaya oo casri ah oo nooca ee hoosta dhooba kule oo aan daxal yeelan karin oo 24 inch waa u mahadnaqaynaa dawladii naga caawiyay midowga Yurub dawladda Ingiriiska waxay ka mid yahay mashruucan mashaariicda ugu waaweyn ee taariikhiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta u meel maray Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa dul istaagay mashruucan la kala saxday waxyaabaha uu qaban doono iyo wax ay bulshada caasimaddu ka faa'iidi doonaan magaaladii in biyo gelin loo sameeyo marka biyo ku filan oo milyan iyo 200 oo qof ay cabaan aynu helo waxaynu u baahanaynaa haddana magaaladii in lagu qaybiyo halkaasay ka soo baxday baahidan maanta Coca-Cola Africa ay diboolaysaa waxay qaabileen qayb kamid ah in iyaguna biyo gelinta sameeyeen magaalada dawladda la Jarmalka oo u mahadnaqaynaa
waxay qaabileen qayb ka mida inay iyaguna biyogelinta sameeyeen magaalada. shirkadda Coca-Cola iyaduna waxay qaybtii hadhay meelihii aan Jarmalku biyogelintiisu gaarayn ayay iyaguna daboolayaan. xaafadda Axmed Dhagax qaybo ka mida, maxamuud hayga qaybo ka mida, iyo qaybo ka mida Koodbuur. saddexdaad degmo qaybo ka mida. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. si gaar ah waxaan ugu mahadnaqaynaa muxuu ahaayay Coca-Cola Africa Foundation